الرحيم إلهي بمهضله مركوبات مركلبات تسكين برو حنا عبد الله محمد إسماعيل عبد الله الريق مادة الكمبيوتر ساينس كان بدنا واحد لو شرحها إنه كهذا الشو كمبيوتر لبا قيبات بس دوين لو كلا سعنا قيبته كوبا حوين قيبته سريع قلفته قيبته حوين معدة كمبيوتر كسوفت ويرسكا أما قيبته نحرك المقابات الله يقان كمبيوتر ساينس أنت بدنا هو كهذا أم بخصية قيبته المقابات السوفت ويرسكا إنه قفكو برتو سوفت وير سيدا برنامج كو برتو أو برنامج ده ديكورنتي aad u balaarihin oo nimka kale lagu soo koob karin aan xabadii la balaga sheekarin qofka cusubna runtii looga sheekar haddaan ka hadalno fakalkan amba qaybta waxbarasho ee computer science-ka badanaa waxa ardayda xiisaynaysa amba qofkii baranaya waa inuu sameeyo inta badan uu ahaado qaybta science-ka ee dugsiyada sare ka soo baxay badanaa aad ugu fiican yahay maadada loo yaqaan xisaabta oo aad muhiimad badan u siinayo qofku si uu dhigto computer science amba takhasuska uu qaato computer science maadada computer science inta badan waxa ardaygu hiigsanaya ardayga dhameeya ama uu ku hiraal qabaya in uu ku takhasuso si uu noqdo programmer amba web designer amba database analyst oo noqdo qof database-ka inta badan gacanta ku haya waxa loo shardiyaa inuu qofkaasi yahay amba ka soo baxay amba takhasuska uu ku takhasusay computer science saynu wada ognahay dalka waxaa ka jirta xirfado hadda soo koraya oo badan la hana qaadaya internetka iyo technology-ga kuwaasi oo inta badan looga baahi badan yahay xirfadihii gacanta laga qaban jiray taas awgeed dhalinyarta waxaan ku dhiirin karin lahaa ama oran lahaa inay ku soo biiraan kulliyadda computer science-ka oo ah kulliyadda ugu muhiimsan ee haddan technology-ga amba culuumta casriyaysan ka qayb qaadan karta qayb badan oo ka mid ah noloshada saadu noqoto programmer waxaad ku soo biirtaa kulliyadda computer science-ka saadu noqoto web designer waxaad ku soo biirtaa kulliyadda computer science-ka saadu noqoto database analyst waxaad ku soo biirtaa kulliyadda computer science-ka shaqooyin badan baa ku bannaan kuwaas oo badan in adiga lagu baahdo amba xirfadaada ku qabsan karto guriga adiga oo maamulaya qaybaha dhammaan wixii lagaga baahan yahay sida aad samayso softwares adiga oo develop gareeya systems adiga oo badan samayn kara barnaamijyo aad ku develop gareyn karto internetka adiga oo shaqo kala baahan taa waxa ku dheer in dhammaan shirkadaha waddanka ka shaqeeyana ay ku baahan yihiin mar kasta iyo goob kasta kulliyadan waxaan ku qaadan karnaa waxa muhiim ah in ay tahay kulliyadda kaliya ee maanta ka shaqeyn karta wadannada horumarka ku tallaabsanaya ee badanaa la saneeyo culuumta technology-ga sida tusaale ahaan kale imika waa laga guuray wax qalin lagu qoro haddii arday la diiwaangelinayo waxa la diiwaangelinayo waa system that means waxa weeye systemkaasi waxa develop gareeya waa qof ka soo baxay computer science-ka waxa la sameeyaa shirkad amba xawaalad ama bank taas macnaheedu waxa weyn ardaygu inuu ku soo takhasusay kulliyadda loo yaqaan computer science sida awgeed qof kasta uu jecel yahay inuu ka shaqeeyo xafiis qurux badan si uu xafiis qurux badan uga shaqeeyo waa inuu ku soo biiraa kulliyadda computer science arday aad tahay computer science degree ka soo baxay amba heerka koowaad ee ku qaatay maadada computer science-ka waxa ku bannaan fursado badan oo aad ku diyaarin karto second degree-ka amba master's degree waxa loo yaqaano oo ay ugu horeyso inuu qofku computer science ku takhasusga sii wadan karo inuu qaadan karo programming languages oo uu programmer noqon karo inuu qaadan karo web designer oo noqon karo maxay qofkii web design gacanta ku hayay inuu noqon karo database analyst oo database administration oo ku takhasus karo waliba qaadan karo courseska certified-ka ah sida Oracle-ka iyo wixii la mid ah inuu qaadan karo waxa kale uu qaadan kara dhammaan qaybihii kale ee security-ga la xiriiray security-ga aad u fara badan yihiin laakiin qaybihii security-ga la xiriiray dhammaan masba ku diyaarin kara waxa kale oo fursad u haystaa arday kaliya ee loo ogol inuu computer engineering master ku diyaariyo waa inuu marka hore ahaadaa computer science computer science waa marka hore inuu ahaado computer science soo diyaariyo maxay computer engineering ay jaamacada doonto meesha doonta ku taal haddii ay takhasuskaagu yahay hore amba heerkii koobaad oo ahaa computer science waxaad diyaarin kartaa kulliyadda loo yaqaano computer engineer iyo software engineering oo labaduba ay diyaar ku yihiin oon cidina ka horjoogsan saasuu noqonaya takhasuska ugu muhiimsan oo qofku qaadan karo. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.